مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى سمع الله لمن حمده الله أكبر في جنة عالية لا تسمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa ku ciida caafimaad iyo barwaaqo iyo horumar waxaan u rajaynaynaa colaadaha iyo dhibaatada ka dhex jirta ilaahay inuu ka dulqaado ilaahay inuu ka gaabiyo ilaahay inuu ka baabiyo colaadaha qaraabadayda ehelkayga asxaabtayda saaxiibaday inta ay taqaanaan anigu Cabdicasiisa suldaanka bulshada Soomaaliyeed anigoo ah waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan si gaar ah u salaamayaa eheladayda waalidiintay maxaan ku dhahaa walaaladay dhammaan inta ay taqaana oo dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kasto aad joogtaan ciid wanaagsan baan leeyahay dhammaan muslimiinta meel kasta dunida ka joogaan waxaan leeyahay كل عام وأنتم بخير. المدة المسلمين تعمل كستي شويان عليها هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. سنة كسنة كيسة كلا إلهي نوجرسي بش برواقه. قفوا المسلمين عليها بيد. يو فرحتي كويدة دمانتين. ما شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وحوي محمد بيلو محمود. آدي بان مانتا وفرح سناي. ramadaankii 30 sano ilaahay baa nabad noogu soo dhameeyay alxamdulillaah maanta waa maalin aad u faraxsan muslimiinta dhammaantood dunida cadadada meesha ay joogaan hal mar bay isla iidayaan waxaan leeyahay farxadan aad iyo aad dhibaatadii iyo dambiyaalkii iyo waxyaalihii hore lagu jiray hor liisay gelin waxyaalo fara badan ayaan ramadaanka ka baranay cibaadada sideeda loo sii wada midnimada iyo walaaltinimada iyo wadajirka aad iyo aad loo wanaajiya waa maasantiin dhammaan meel kasta joogta maxay leeyahay muslimiinta halkan waxaan ka salaamayaa ehelkayga iyo qaraabadayda oo ugu horeysa hooyaday waxaan leeyahay ciid mubaarak Soomaalida ummadda dhan waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan kaloo u mahadcelinayaa Shakaal TV iyo sida quruxda badan ee barnaamijka dadka ciid u weydiinayso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciidukum mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal waxaan halkan hambalyo iyo salaan tahniyad ugu dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ku saabsan Ciidul Fitri gaar ahaan waxaa hambalyo u dirayaa waalidiinteydii khaasatan hooyaday oo ku nool Soomaaliya iyo aabahay oo ku nool dalka Saudi Arabia iyo dhammaan walaalahay oo joogaan daafaha dunida Faadumo Maxamed Xasan halkan waxaa ka salaamayaa aabahay macaan Maxamed Xasan Cilmi hooyaday Darro Aadan Yuusuf walaalahay dhammaan ehladeyda meel walba ay joogaan ciid mubaarak ah idin leeyahay kullu caam wa antum bikhayr alxamdulilah maanta waa maalin ciida waa maalin farxadeed waa maalin mataqaanaa salaada tukanayno salaada soo aadnay alxamdulilah ilaahay baa soonka fadligiisii noo dhameeyey maantana waa maalin tii ciidda alxamdulilah annaka iyo familkanaga ciiddii baan bashaalaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak inbaan ciirsanayaa horta magacayga oo dhammaystiran waxaa Xasan Ibraahim Maxamed Cali ciyaalka xaafaddan waxay u yeereen DJ Xasan waxaan ku dhawaarta maanta waa maalin farxad leh oo maaragtay aan xawaaraha oo islaamka aan la soo koobi karin marka maanta maalin lamada weli ma aan arkin
باشا ولا لو قالوا محمد قادر waxaan ka rajaynayaa in qof walba nabadka dhinaciisa laga ilaaliyo oo intii mataqaanaa waxa weeyaan salaada ka gelayno aan mar walba aan sagaajino wiilal baa soo dhaxmar doona wiilashaas garoonku waa wakiilo lacag fara badan buu laga lumiyaa u socda si fiican gacanteed siinimo leh marka ay soo maraan waxaa haysaa ugu ridaa insha allahu tacaala telefoon bas ah waa wataa waa ninkii mataqaanaa bas u tuuray uu tuuri karaa insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynayaa ciidan ciiddeeda kale inuu annagoo nabada nagu gaarsiiyo caafimaadna qabna maantana sama iyo farxad inaan ku iidno waxaa kaloon doonayaa inaan ilaahay uga baryo ummadaha islaamkee tabaalaysan mushkilada colaadda abaarta iyo dhibaatooyinka kale ka jira inuu ilaahay ka qaado khaasatan dhulka aan xiriirka walaaltinimada wadaagna ee Soomaaliya inuu ilaahay nabad ka keeno nabad ay dadku ku noolaadaan mushkilada dhawaan ka dilaacday dalka Suudaan dadka muslimka ee Suudaanna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay aamiin amaan iyo nabad siiyo xusuus dheeraad ah waxaan u diraynaa walaaladeena Falastiin ciqaabada haysata waxaanan leenahay waan idin garab taaganahay ilaahay garabkiina ha galo muslimiinta India khaasatan Kashmir dhibaatada haysata waan garab taaganahay iyo meel kasta oo muslimiintu ay ku dhibaataysan yihiin waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad nabad iyo wanaag siiyo ugu dambeystii waxaan idin leeyahay meeshan sidaan isugu soo baxnay muslimiintu ku soo baxnay annagoo isku wada duuban oo iswada jecel ayaan isugu nimid qabiil iyo qoys ugu halkan kuma iman waxaan jeclahay inaan halka ka sii wadno sare u sii qaadno oo aan xoojino midnimadeena iyo wada jirkeena iyo wada shaqaynteena iyo kala dambeynteena iyo ismaqalkeena guul weyn baan gaaraynaa haddii aan isku duubnaano haddaan nahay dadka Soomaaliyeed wax Soomaalinimadan ay ku fiican tahay iyo muslimnimada in heer hoosoo kale loo sii wado wax faa'iido oo leedahay waliba wadankan aan joogno oo annagu aan ku tira yarnahay waxaa noo fiican in aan xooggeena ku miijino midnimadeena iyo wada jirkeena marka waxaan ilaahay ka baryaa inuu idin waafajiyo midnimadiina kalgacayl iyo wanaag iyo walaaltinimada inaad ku noolaataan xaafadan waad aragtaan inaan ku soo korornay ganacsigeennana uu caadaasi marayo tiradeenu inay soo kordhayso ilaahay mahadii dad tira yar baan ahaan jirnay maantana waan isdhalnay ubadkeenni iyo carruurteenni baa meel kasta jooga inaad xoojisaan aqoonta weliba iyo dhaqanka Soomaalida qurba joogga ah way dhaqan wareegayaan af Soomaaligu qurbaha carruurta ku nool iminka kuma hadasho diintuna way ciriiri bay ku tahay marka waan ogahay qurba joog fara badan inay dib ugu soo noqonayaan oo isliina ay xaruntoodii tahay maanta marka xoojiya aqoonta iyo waxbarashada iyo madrasada carruurta iyo diintana ku adkaysta marka assalaamu calaykum waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ku ciida sama iyo farxad ku ciida guul baan idin rajaynayaa haddaan nahay annagu ummadda Soomaaliyeed hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh